الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الكرام الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. walaalayaal waxaynu khudbadeena kaga hadlaynaa shayga loo yaqaano wasaa'ilu thabaati calaa diin illaah, waxyaabaha kaa caawin kara inaad ku sugnaato diinta ilaahay oo aanad ka duulin. mowduuca waxaynu doorannay waa muhiim maanta liasbaabin kaiira wa cidda, sababo badan daraaddeed. waxaynu arkaynaa caalamka oo runtii waxyaabaha qofka muslimkaa weydaarinaya diinta maanta way ku badan yihin. xagga dambe aynu ka sheegi doonaa insha allah. waxaa kugu sugi kara diinta ilaahay inaad haysato waa raasamaalkii keliya, waa aayatiinkii. hadduu qofku waayo diinta ilaahay weydaartana dhab iyo dheeldheel mid kastaba ha u dhaaftee, dad iyo dunya wax anfacayaa ma jiro. adduun iyo aakhiro labadaba wuu eeraarayaa, sirc buu ku noolaan. maa fi sacaada fi dunya walaa fi laakhira. mujtamaca diin waaya duunye iyo dal midna waxba uma tara. dadka muslimiinta haddaynu saasaynu aaminsannahay, raasamaalka keliyaynu haysanaana waa isaga. cabduu calayha binnawaaj. nebi maxamed wuxuu leeyahy gows dambeedka ku xajista. waxaa kugu ilaalin kara u horeeya waxa weeye aliqbaalu cala alqur'aan wa calaa kalaam illah. ilaahay kalaamkiisa in lagu jahaysto oo dadku ahlulqur'aan ay noqdaan. odayga, islaanta, madaxda, dhallinyarada. waxaa macruufa hadda waxaynu kula dadaalnaa qur-aanka barashadiisa caruurta yaryar. yaa kaaga baahi badan. ilmaha yar mukalafba maaha, qaangaarhba maaha, wali xilba ma sahro, lalama xisaabtamayo. ciddii la doonaya kalaamka ilaahay inay barato oo ay dhadhamiso oo ay fahamto oo ay ku cibaadaysato oo lagu camal falo waa innaga odayaashiiyo islaamiya madaxda wey. kalaamkii rabbi in masaajidkana la dhigo, caruurta yareerna lagu karbaasho, la yidhaahdo akhrista. waxaa halkaa ka muuqanaysa dadkii waajibka ku ahaa inay weydaarteen kalaamka ilaahay. mar kastoo qofka mushkilada ay ku timaado isaga u noqdo, wuxuu ka dhigan yahay qof ilaahay la hadlaya oo la tashanaya oo weheshanaya. ilaahay baa wuxuu tilmaamay faa'iidada uu u leeyahay qur-aanku dadka. wuxuu uhi kadalika linuhabbita bihi fu'aadaka waratalnaahu tartiila. weligoodba ha hadleena kalaamkan waxaan muddada dheere 23 sano ah kuugu soo dejinayay si aan qalbigaaga ugu sugo. qalbi oo dhanka ugu qiimo badan wuxuu ahaa qalbiga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. qalbigaagaan ku sugayaa buu ilahay yihi qur-aanka. maxaad u malaynaysaa qalbigeenna liita ee qalqallooca ee inuu qambabo u dhawaaday? kaasaa u baahan qur-aanku inuu qooyo. marka qur-aanka waxaa u horeeya qofku weheshanaya ee xataa haddaanu macnihiisa garanaynin, jinka, insiga, shayaadiinta, shubuhaadka, waswaaskaasi uu kaga tegaya waa waxiga ilahay inuu weheshado. waxaa labaada wasaa'ilu tahbiit ka mida waxyaabaha inagu sugi kara iltizaamu sharci illaahi waalcamal asaalix. in dadku ay diinta ku dheganaadaan oo ay ku dhaqmaan oo camalka saalix iyo cibaadada suubanna badiyaan. taasi baa sharciga ilaahay iyo camalka wanaagsan waxyaabaha inagu ilaalinayo weeye. inaynu waxyigan inaynu dhowrsoonaano diinta xijisano. yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli haabiti fi lxayaati اdunya wa fi laakhira. wuxuu ilaahay tilmaamay dadka iimaanka leh ilaahay inuu ku sugayo diinta adduunyada iyo markay qabriga galaan labadaba. marka qofkii ku sugnaa adduunyada waxyigan baa qabrigana ku sugmaya. kii iska weydaartay wuxuu u dhowaya qabrigana inuu weydaarto. labadaasuu ilaahay israaciyay adduun iyo aakhiraba. waxyaabaha inaga caawinaya waxaa ka mid a tadabburu qisasi alambiyaai wasaalixiin. adduunyada inagu umaynaan horeyn, soo jireen iyo sooyaal bay lahayd. dad wanaagsan baa inooga horeeyey. nolosha waa la soo tijaabiyey. wixii lagu guulaysiiya wixii lagu fashilmayba qisooyinka inaad akhrido. dad badan inoofallada iyo sheekooyinka kale u helayn
laakiin qisaska qur-aanku uu ka warramaya ama axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam laha alcibaru walmustafaadaat, cibrooyin iyo casharay leeyihin qisooyinkaas. oo marka culimada sharxaysa qisada ay sheegaan waxay odhanayaan waxaynu ka faa'idaysanaynaa waxaa iyo waxaa iyo waxaa nolosha soo socota kuu sixi kara iyo taad ku jirtaba. ilaahay baa wuxuu uhi wakula naqusu calayka min anbaa'i rusuli maa nuhabitu bihi fu'aadak. qisooyinkaa rusushu ay leeyihiin waxaan kuu sheegayaa waa qisooyin sugi kara qalbigaaga baa ilahay. ma aha warkuu nebi maxamed u khitaabka ama la hadalku keligii ku kooban yahi, waa qof walba. maa nuhabitu bihi fu'aadak, qisaskaa waxaa ku jira wax badan oo qalbigaaga sugi kara baa ilahay ui subxaana wa tacaala. markaad akhrido qisatu asxaabi اlkhduud, dad bani aadam ahoo la qabanayo o la moofaynayo oo dab la gelinayo diinu lagu dilayo, markaad aragto nimankii fircoon uu sacabaynayo u ahaa kursi baan idi siinayaa markay ashahaateen u laynayo, waxaad arkaysaa wax badan baa kuu kordhayo qofku uu odhanayaa sho weligeedba sidanay soo ahayd, dee si aanay dadkaasi u fashilmin ay u guulaysteen adiguna u guulayso. waxyaabaha kaa saacidi kara waxaa ka mid a adducaa, inaynu ducaysano oo insaanka muuminka ahi mar walba awoodda ilaahay ayuu ku tiirsan yahay. arukn arakiib, tiirka adagoo ilaahay buu ku tiirsan yahay. qur-aanka ayna baraya iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam. muminiintu waxay ku ducaysan jireen rabbanaa laa tusi quluubana bacda id hadaytana wahab lanaa min ladunka raxmatan inaka anta alwahaab. ilaah qalbigeyga haduu qalbiga waxa duwaa uu badan yahay, ilaah qalbigeyga haduwi ayay ku ducaysanayeen. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إلهي صبرك نوشو وصبر نصيب ووقتها عروس بالرحمة إلهي وقفك عيري ترى والدين تكدعي ترى إلهي نوص ونصرك النصيب. نبي محمد عليه الصلاة والسلام دعاء سي وحي وبضنا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. إلهي قلوبتك قد قديه وقلبك يقوحد كسكتا دينتها. عايشة ويلا يارتو حيث النبي محمد من نبي بaa warwareebeed oo qalbigiisii warwareeyo iimaankii oo islaamnimadii kaxay ducadan dee aad baad u badisaa. wuxuu markaa rasuulku ugu jawaabay sallallahu alayhi wasallam al-usbu'u al-qulubu bayna usbu'ayn min asabi' ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha. qalbiga bani aadamka ama qulubtu waxay ku jirtaa faraha ilaahay laba farood oo kamid ah u dhaxaysa uu rogrogaa ku doonayo ka ridaa. marka sidii yar buu insaanku u simir raxlaa waa ka kasii warramay aakhiru zamaanka in gabalku markuu dhacay waagu ay isweydaarsanaan doonaan xagga diinta ku jirideeda iyo ka bixideeda. mid baa iminka soo islaamaya, mid kale goor loo baxaya, kii soo islaamay baa sii gaaloobaya. markaa dadkii baa gaalnimadii la fududaanaysa. waxyaabaha inagu sugi kara waxaa ka mid ah alxirsu calaa an yasluka ariiqa asaxiix, waddadaa wanaagsan uu nebi maxamed inoo jeexay calayhi salaatu wasalaam, inuu qofku ku dadaalo manhajkaa sugana saxda ah, inuu qof ku dadaalo waxyaabaha inaga caawin kara wey. taasina waatuu tijaabinaya ninkii hiraqla loo jir, ninkii madaxda ka ahaa romanka ama nimankii reer yurub, isagoo waraysanaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu soo baxay ayaa wuxuu cid horta aqoon u lahoo carabtii ka midii ma joogaa. abi sufyaan baa markaa meesha joogo, gaal ba ahaa, waa kii waraystay. su-aaluu weydiiyey waxaa ka mid ahaa dadku miyay soo biirayaanoo way soo kordhayaan isaga rumeeyey nebi maxamedka aada sheegayso, mise way sii yaraanayaan? maya way soo biirayaan buui. ninkaa wax rumeeye mooye wax ka gaaloobaba ma haynaba. wuxuu ku jawaabay wakadalika aliimaan xiina yukhaalitu alquluub aw fii quluubi cabd aw alcibaad. iimaanka caynkaasi buui markuu qalbiga addoonka galo uu kusii adkaadaa. marka taasi waxay sheegaysaa buui manhajkiisu inuu sax yahay, waddaduu dadka ku hagayaa inay saxta, isagoon islaambu caynkaa ayuu ninkaasi sidaa leeyahay. waxyaabaha inaga caawinka waxaa ka mid ah atarbiya aliimaaniya, dadka in rabaayad fiican la siiyo. tarbiyadu waxa weeye cilmiga iyo aqoonta oo camalkooda dadka la baro, dad yaryar iyo dad waaweynba. rabaayad iyo tarbiyad marka la yidhaahdo dadku waxay moodaan inay carruurta iyo ciyaalku u baahan yihiin. dadka waaweyn baa rabaayadda ugu baahi badan, fahmayana sirta iyo xikmadday leedahay. nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam markuu dadka tarbiyadaynayay dad waaweyn buu tarbiyadaynayay.
tarbiyadaasina waxay ahayd sucuubadii iyo dhibaatadii adkayd waxay kaga soo gudbeen dad la dhisay bahan la dhisay khabaab iyo bilaal iyo suhaybi asxaabtaasoo dhammi marka la garaacaye la dhibayey waxay kaga soo gudbeen dad rabaysan bay ahaanoo hadaf leh marka maantana waxay isku dayaan ummadaha shisheeye inay siday doonayaan dadka inoogu rabeeyaan wax alla waxaasoo agabe la baahinayo iyo waxaa la sheegayo dad baa wax la gashanayaa siday doonayaan ay u rabaysanayaan marka taasina waa inaan ku xisaabtanaa weliba alajyaal alqaadima qarniga soo socda rag iyo dumarba leh ayna bedelayaan ee diin iyo dadba inaga nasin doona in rabaayadooda lagu dadaalo waxyaalaha diinta inaga caawinaya inaan ku sugnaado waxaa ka mid a cadamu tacarudi lilfitan qofka wixii fitno ku keeni kara ee diintiisa ka fasahaadin kara ama dal uu tegaya ha ahaado ama dad uu la saaxiibaya ha ahaado inuu ka durko oo uu iska daayo oo aanu eegin damac kale sidaa daraaddeed laabudda an nacrif mawaatin alfitan waxaa laga maarmaana markaa meelaha qofku uu ku fitnoobi kara diinta ka aafayn kara ee uu ka feejignaanayo inaynu baraarujinno waxaa ka mid a fitnada maalka dadka qaarkood musiibadu maalkaasee u gashay iyagoo maalkii ku dadaalaya iyagoo maalkii la xajeclaynaya iyagoo maslaxad eegaya ayaa si yaryar diintiisii uga tegaya markaasuu xaaraan u qaadanaya ribadiibuu badheeraya qishkiibuu u badheerayaa sidaad ku xasilisaa maal iyo maalkaagu yuu naaqusin waa dabaqada tijaarta la idhaahdo fitnadoodu maalkay kaga timaadaa inta badan sidaa daraaddeed baa qur-aanku uu aada uga digaa innamaa amwaalukum wa wlaadukum fitna dadkiinu iyo duunyadiinu diin la-aan bay sababi karaan baa ilahay wi ilaahay baa wuxuu ka warramay nimankii munaafiqiinta ahaa halka cudurkaasi uu ka raacay waxaa u badnaa maalka wa minhu man caahada allah lain aataanaa min fadli lanasadaqana walanakunan min asaalixiin waa munaafiqiintii mid ka mid a hadlaya wuxuu leeyay wallaahi waan dhaartay waan imika waan yara busaarasanahay hadduu ilaahay ii badiyo oo xoolaha u biiriyo walla inaan sadaqa bixin doono oo dadka wanaagsan ka mid noqon doono baashii markuu helay usii biirtaba diintunbuu kasii durkaa diintuu kasii fogaadaa ilaa uu cudurkaa nifaaq bartanka u galay waxaa ka mid a fitnada aynu iska ilaalinayna fitnatuljaah qofku isagoo maal waabuu iska haystaa qaxwihiisii u haystaaye magac raadisa oo madaxnimo iyo kursi iyo siifiigu ha ku hagaago iyo waxaasaa la odhan jiray waxaasuu shaydaanku u sawiraya iyo ragbu wax uu noqdee adiguna wax noqo kursiga dabada ii saaroo igu riixa ayuu leeyahay markaa kolku kursigaa fuulo waxaa laga yaabaa hadduu doono sheekh iyo wadaadba ha ahaadee in uu xareeraha eegu idhaado taba kursigaa miyaad ka tagtaa waxbay sheegayaan mise waa iska xejistaa wallahi haddaad qaanuunkaa ka hor tagto kursigaad waaye haddaad mowqifkaa qaadato maslaxadaasaad waaye oo maanta hore u socon kari mayse haye markaa dabeetana waxaa dhacaysa tanaasul inta badanna qofku markuu dhex galo dadaan diin u adeegayn saddex midun bay noqonaysa in isaga la tuuro iyo inuu manhajkiisii xaqiijiyo iyo inuu tanaasulo midi suuragal maaha way adag tahay dad ka badan inuu muquuniyaa way adagtahy laakiin labada kalaa suuragala in isagii la eriyo oo daaqada laga tuuru ka baxo iyo inuu tanaasulo tanaasulkaasaanu ibliisku u sallaxayaayo uu leeyahay maanta marxaladii nin weyn baad ahaydoo marxaladda aad soo gaadhay ma ka tanaasuli kartide bal dadkuba siday u bateena iska warwareeg maalin ban yar buu diintiisii ka ayuu siisanayaa yabiicu diinahu bicaradin min addunya qaliil sidaa uu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam lidalik baa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uga digoo la yidhi wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashay yuriiduuna wajha walaa tacdu caynaaka canh turiidu ziinata alxayaati dunya walaa tutic man akfalna qalbahu can dikrina watabaca hawaahu wa kaana amruhu furta adigoo madaxtinimo iyo ilaashanaya magac iyo mansab dadka ducafadaha ka tegina diinta ku toosan oo kuwa xadgudbayaashaha raaci baa rasuulka lagu yihi sala allahu calayhi wasalam marka taasina aad bay u badan tahay qofku wuxuu ilaalinayaa waa diinta ilaahay haddii la dayacana mowqifkiisa xaqa waa inuu qaato fitanka waxaa ka mid a fitwadan ka timaada dumarka oo mar waxaa laga yaabaa ninka xaaskiisu inay fitnayso sidaa ilaahay uri yaa ayuha aladiina aamanuu ina min aswaajikum wa awlaadikum caduwan lakum
faxdaruuhum ubadkiina iyo oorihiina waxaa ka mida qaar cadowa baa ilahay oo idin fitnayn kara ee ka feejignaada. cadow yaa kuugu dhowaalay dee ooridiiyo ubadka waa cadow, way ku agjiifaan. haddana cadowgu ilaahay kugu tilmaama hadii alxidhaalo laga dhigo la idhaahdo bal waxaad garatay cadowga kuugu dhow dee qur-aankaaga inoo cayimayba waa ubadkii iyo ooridii. say cadow u noqonayaan aba dadkaan u dadaalayaan u ordayeen dee hadday ilaahay ku seejiyaan ay aakhiro ku seejiyaan ay cadaab ku horseedaan maxaa kuu haray? dii mustaqbalkii kaa dhinto maxay ku anfacayaan? ma qabrigay kula gelayaan? ma qiyaamahay ku shafeecayaan? intiiba ku weydaariyeen. lidaalik buu rasuulku sala allahu calayh wasalam isagoo ka digayaa wuxuu lahaa alwaladu majbanatun mabkhanatun maxzana. waa xadiid saxiix. ubadku qofka fulay bay ka dhigi karaan, bakhayl bay ka dhigi karaan, mid werwero oo noloshu macno u samayn weydo oo murugaysan bay ka dhigi karaan hadday hagaagi waayaan. marka taana aad baynu uga feejignaanaynaa da-yarta maanta fitnada in fara badan yuhuudda iyo ay ku fasahaadiyaan gaalada waxaa ka mid ah shahawaadka, waxa qaawan iyo dumarka iyo sigiska iyo qurunka aad arkayso meel walo wax laga sii daynayaba ishii baa laga wasakhaynaya. daayarta waxaa lagu qabsadaa qaawanaanta iyo cawrada iyo ceebta ayaa lagu qabsadaa, kuwaasaa diinta laga saaraa, kuwaasaa lagu duufsadaa. idan markaa qofku waa inuu feejignaado ishiisa iyo xubnihiisa waa inuu ilaaliyaa. ilaahay baa ugu nicmeeyey subxaana wa tacaala, nicmada ilaahay waana xaaraana ku isticmaalay. fitankaas waxaa ka mid a aliddihaad waduqyaan, dadka had iyo jeer muslimiinta iimaankooda lagu haystay aqaliyaadka caalamka. waynu inagu waxaynu dad iska dalkoodii iyo diintoodii jooga oo wax badani ay ka maqan yihiin baynu markaasaynu garan laanahay nicmooyinka ilaahay una siiyey. waxaad arkaysaa caalamka aqaliyaad dad laga tiro badan yahay oo muslimiina oo diintoodii lagu dhibayo oo dalkoodii laga qaxinayo oo iyagii carruurtoodiiba sidaa ilaahay uu kaga warramay asxaabulukduud la gubayo oo la naarayo oo cid iyo ciirsitoona aan haysanin oo filistiin ay kow ka yihiin. intaa shaashadaha ka daawanaysaan oo dhan oo united nationki iyo wixii la sheegi jiray oo dhan iyo qaramadii midoobay iyo xuquuqul insaanka kama hadlaan marka muslimna dilayo. xabad gaala marka la taataabay soo kacaan. marxaladaas oo kale waa marxaladaha qofka diintiisa uu weydaaran karo ee odhan karo dabkaa horta iskaga baxmaru. taasina waa wakti uu qofku u baahan yahay inuu diintiisa haysto. wakadalik athabaatu cala almanhaj waxaa ka mid a waxyaabaha mawaatin ulfitan qofku manhajkiisa inuu ilaashado oo uu ku sugnaado. oo laga yaabaa qofku isagoo diinba doonaya oo jecelba diinti in fahamku haddana uu ku qalloocdo oo kadibna isagoo diintii duminaya ama bidca ku soconaya inuu u qaato inuu hagaagsan yahay. wayaxsabuuna annahum yuxsinuuna suncan, kuwaa ilaahay waxay moodayaan iyagoo wax qarribaya inay wax hagaajinayaan. athabaatu cinda almamaat waxaa muhiima inuu qofku ku dadaalo marka uu sii dhimanayo isaga iyo ciddii ag joogtaaba in diinta lagu sugnaado waktigaa isaga ah oo qofka towxiidka loogu celceliyo isaguna bay-ada meesha wanaagsan iyo asxaabta wanaagsan uu doorto si ilaahay u waafajiyo khaatumada. ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun. oo malaa'igtii u bushaaraynaysa xaaladda ay sii dhimanayaan awliyada ilaahay. marka waxyaabahaas waxay ka mid yihiin waa mawaatin ulfitan, meelaha uu qofku fitnoogu diintiisa seego. maanta waaligaas sabab waxaad arkaysaa dad badan oo soomaalidii ka mid ah da-yarta ha u badnaadeen sida kuwa mutacalimiinta sheeganaya in badan baa waxay ka doodayaan ama waxay ka kaftamayaan ama waxay ku dheeldheelayaan waxyigii ilaahay iyo qur-aanka iyo islaamka iyo mabaadidii lama taabtaankahay. diinteennu waa hawaabit iyo mutagayiraat. waxyaabaha qaarkood waa hawaabit baa la idhaha way sugan yihiin oo waktiga iyo zamanka iyo qarniga midna ma bedelo. wixii kusoo qur-aanka kariimkaa kusoo arooree daliil sugan ku sugmay sida xuduudda cuquubaadka waxyaabahaas caqiidada la xidhiidha way sugan yihiin lama taabto. kuwaasaa laga yaabaa inay ka doodayaan oo ay ka hadlayaan muxuu nebigu saa yeelay, muxuu ilaahay saa odhan waya. arrintaas ka dood bay u baahan tahay. maaha in dadka qaarkood ay xuurtaystaan oo dadka waxay doonayaan ay u sheegaan. marka lagama doodi karo arrimaha waxyiga ku sugmay daliilka qarciga ah. waxyaabaha mutaqayiraadka waxaa ka mid a wixii si caama la inoogu sheegay oo loo eegayo maslaxadda iyo mafaasidda, maxaa dadka dhib ugu jira maxaase dheer. kuwaasaa dooddu ay geli kartaa. laakiin hadda waxyaabaha ay ka doodayaan dad badani maaha wixii laga doodi lahaa
waa shay qur-aanku uu sheegay oo waxyiga ku sugan kol haddii aayad sugani ay sheegayso oo aan mansuuq ahayn iyo xadiid nebiga ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam waxaa la isla eegayaa uun aayaddaa iyo daliilkaasi ma ku cadyahay hadduu ku cadyahay facala ra'si walcayn samicnaa waadacnaa gufraanaka rabbana wa ilayka almasiir saasaa la odhanaya. idan dadka waxaa aboon in lagu waaniyo oo lagala hadlo oo loo sheego inuu qofku ilaashado asaaladiisii iyo raasamaalkiisii iyo caqiidadiisii inuu ilaashado oo ayaamahan yar uu joogo anfaca weexaysanayo iyo waxyaabaha aynu soo sheegnay waxba uma kordhin kara mana badbaadinaya ilaahay agtiisa uu ku halaagsanaya. allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca waarina albaaila baila warzuqna ijtinaaba waarina albaaila baila warzuqna ijtinaaba. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.